bani aadamku inta uu nool yahay waqtiyada ugu adag ee noloshiisa soo mara waa xilliga uu dhalinyarada yahay. Haddaba haddii aan aragti xeel dheer ku eegno dhalinyarada, waxaa suuragal ah in aan soo saarno ilaa dhowr tuduc. Waxaan u qaybinaynaa 3 qaybood: dhalinyaro toosnaanta ka leexday wadadii wanaagga ahayd, iyo dhalinyaro jahwareersan oo dhexdhexaad ah. Qaybta koowaad waa dhalinyarada toosan. Waa dhalinyaro aaminay Rabbigooda iyo Nabigooda Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oogaya salaadooda, zakadana bixinaya, ummadana macruufka faraya, munkarkana kana reebaya, caawinaya kan taagta daran, iyo dadka u samafalaya kuwooda daciifka ah oo ducafada ah. Waa dhalinyaro markay fikir ay dhiibanayaanna fikirkooda ugu horseeda bulshada inay barwaaqo gaarto, diintooda sharafkoodana uu ku ilaalsamo. Dhalinyarada xigta waa qaybta labaad waa dhalinyarada munxarifka ah oo leexday wadadii wanaagsaneed ee ka leexday. Kuwaasi guud ahaanba noloshu way ka dhacsan yihiin. Waa kuwa aan u aabayeelin xaquuqda uu ku leeyahay Rabbigooda haddii ay dayacaan iyo haddii kale. Sidoo kale kan aadanaha intiisa kalena uu ku leeyahay uma aabayeelaan. Fikirna iska badaa warkiisa. Waa dhalinyaro maankooduna maandooriye ama waxyaalaha kale dadka saqraamiya haligay. Waa kuwo aan ka warqabin wadciga ka jira dunida xilligan, una arka ilbaxnimadu waxa joornaalada ay tviyada ka soo daawadeen iyo wixii la mid ah. Qaybta saddexaad waa qaybta kale oo jahwareersan oo dhexdhexaadka ah. Waxaa la yiraahdaa mutaxayyir bayna bayn marka Carabiga laga hadlayo. Waa qolo ka agdhow kuwa kale, laakiin ka roon iyaga wax yar marka loo eego kuwa guud ahaanba leexday. Kuwani waxay ka dhasheen deegaan wanaagsan, shacab diiniyan iyo dhaqan ahaanba wanaagsan, laakiin waxa ku habsaday dhaqamada iyo albaabada shararka ayaa ku furmay. Taasina ayaa keenayso inay jahwareeraan, caqiida ahaan ay ku jahwareeraan. Badanaa waxay dhacdaa qofka dhalinyarada ah markuu inta badan uu barto al-culuum al-kawniya ama culuumta maadiga uu barto, kadibna diintiisa uusan waxba ka garanaynin marka laga reebo salaada iyo soonka intaas yaryarta. Taasi waxay sababaysaa waxyaalo badan asiga mugdi ka ahaa ama daaha ka saarnaa markii loo furo ama si kale wax loogu sheego in caqabad ku noqoto inuu fahmo. Taasi ayaa keenayso jahwareer dhanka xarbul fikriya inuu ku dhaco, taasna ay sababto qofku inuu laba midood u noqdo, ama inuu raaco kuwa munxarifka guud ahaanba lumay, ama inuu ku soo baaqi ahaado weligii kuwa jahwareersan ka shakinaya diintooda. Haddaba kan sida looga hortagi lahaa dhammaan caqabadooyinkiisa asiga haysta, waxaan ka hadlayaa waa qayb saddexaad kaliya. Asiga wuxuu u baahan yahay in diiradda la saaro barashada thaqaafada islaamka iyo inuu ku daydo salafkii hore, dadka wanaagsanaa iyo dhaqamada awoowayaashiisa bulshada asiga uu ka soo jeedo, inuu la falgalo. Muuqaalka maanta intaas ayaan ku keenayna. Waxaan idin leeyahay muuqaalkan kiisa xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.